tan iyo maalintii uu bilaabmay dagaaladii gobolada bari ee Soomaaliland waxa dhacday dhimasho fara badan iyo dhaawac aan tiro lahayn maxaabiista la kala haysta way tiro badan muddada uu dagaalku socday waxay gaadhaysaa 8 bilood ciidan mooye caqli wali looma isticmaalo Soomaaliland wixii ay ciidan iyo awood haysay waxay isugu geysay dhanka bari maadaama ay tahay dhanka balaayadu ka higleynaysa dhowr kan bilood ee aan soo dhaafnay haddaba su'aasha isweydiinta leh ayaa waxa ay tahay yaa dagaalamaya yaa sila la dagaalamaya waa Puntland amba dawladda ka dhisan Garowe oo ku soo hoos dhumanaysa dadka jooga gobolka Sool iyo Somaliland oo rabta inay xuduudaheeda difaacdo xuduudan oo ka mid ah xuduudihii gumaystuhu Afrika kala dhaxdhigay mana jiro run ahaantii wadan raba xuduudiisa intaa ka mid lagu soo xadgudbo waana qodobka reer Somaliland dhammaan yar iyo weyn ay ka midaysan yihiin inay dhigooda qubaan walow uu jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya axsaabta ku tartamaysa kursiga madaxtinimada khilaafkaas oo jamhuuriyadda Somaliland ay maalmahanba ku howlanayd xalintiisa ayaa isaguna u muuqda waqtigan xaadirka mid la isku afkartay dawladda Somaliland waa mid ka dhisan dhan kasta marka laga fiiriyo waana dawlad awoodeedu ay dhameystiran tahay marka loo eego dawladaha jaarka maleeshiyaad fara badan oo aad u tiro badan ayaa isku soo urursaday dhulka Soomaalida iyaga oo waliba huwan magac la yiraahdo Hiil Harti arrintaasi oo ka dhalatay dilal bareera oo ka dhacay magaalada Laascaanood gudaheeda haddaba dilalkaasi ma aha kuwa ku cusub gobolka Sool waa dilal in fara badan soo jeetamayay dad fara badan ayaa xabsiga ugu jira ilaa maanta haddaba dilalkaasi markii aad loo dabagalay waxa la ogaaday inay ka dambeeyay dad deegaanka ka soo jeeda garaadada beesha dhulbahanta waxay istaageen haday Somaliland wadankeena ka talinayso maxay u soo taagi waayeen maxkamad caalami dadka geysanaya dilalkan qorshaysan ee magaalada Laascaanood gudaheeda ka dhacaya hadalkaasi waxa uu kiciyay dadka shacabka ee reer Laascaanood mudaharaad fara badan ayaa dhacay dilal fara badan ayaa dhacay ciidanka Somaliland xabad nool ay adeegsadeen Hiil Harti oo dhan ayaa isugu yimid gobolka Sool ciidanka Somaliland waxa amar buuxa lagu siiyay inay ka soo baxaan gobolka Sool oo ay yimaadaan Goojacada oo isla gobolka Sool duqeymo fara badan ayaa ka dhacay magaalada Laascaanood guryo doora ayaa dumay baa dhacay dad fara badan way ka qaxeen guryahoodii garaadadu waxa ay ku taliyeen in dagaalka si kabad dambays ah loo galo